kulanti wacan saaxiibayaal meel baad joogtaan magacayga waa qaliiji saa u jeediin maanta mowduuc waa ka yar duwan yahay mowduucyadii hore aa ugu barteen kanaalkan oo maanta waxaan rabnaa in aan ka hadalno sportska ama ciyaaraha maadaama maalinta beri ay tahay maalinta lasoo gabagabeynayo bundesligaha wadanka jarmalka. Bundesligaha sanadkan xamaasad qaas ah ayuu leeyahay oo yurub oo dhan ilaa caalamka oo dhan ayaa isha ku wada haya oo waxaa la sugayaa maalinta beri ah qofka ku guuleysan doono horyaalka Bundesligaha wadanka Jarmalka. Saawad ogtihiin horyaalada ugu waaweyn ee qaaradda Yurub intooda badan marar ayaa la soo qaaday oo tusaale ahaan Premier League waxaa hor u soo qaaday kooxda Man City aysan weli dhammaanin. La Ligaha Spain waxaa sidoo kaleeto marar u dabaaldegtay kooxda Barcelona. Napoli waxay u dabaaldegtay Serie A da Talyaaniga. Sidoo kaleeto League One oo asigana ah Faransiiska waxaa u dabaaldegtay kooxda PSG. waxaana weli la go'aamin kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Bundesligaha wadanka Jarmalka. Dad badan waxay isweydiinayaan sababta oo xiiso u leeyahay Bundesligaha maalinta beri maxay tahay. Jawaabtu waxay tahay kow waxaa maalinta beri ah la xaqiijinayo qofka ku guuleysanaya horyaalka ayagoo laba kooxood oo iska agdhow ay u tartamayaan. Haddii mid ka mid ah laga badiyo ama oo bareejo galana oo ay noqonayso in kan kale oo ku guuleysanayo horyaalka. Sababta labaad oo xiiso u leeyahay waxay tahay saaxiibayaal in kooxda Bayern Munchen oo muddo 10 sano xiriir ah oo ku guuleysanaysay horyaalka Bundesligaha Jarmalka in beri keeda 11aad laga joojiyo isla markaana ay ku guuleystaan kooxda Dortmund 10 sano ka hor kadib. haddaan isla fiirino tabeelaha hadeertaan waxaa horyaalka hogaaminaya kooxda Borussia Dortmund oo waxay ku hogaaminaysaa 70 dhibcood hal kooxda Bayern Munchen ay haysato 68 dhibcood. taasoo ka dhigan haddii Dortmund beri laga badiyo ama bareejo gasho isla markaana Bayern Munchen ay soo badiso in Bayern ay ku guuleysanayso koobkeeda 11aad halka haddii Dortmund beri ay badisana ay ku guuleysan doonto 10 sano ka bacdi koobka Bundesligaha wadanka Jarmalka. oo Dortmund waxay beri la ciyaaraysaa kooxda Mainz gurigeeda ay ku casuumaysaa. sidoo kale kooxda Bayern Munchen ayadana waxay aadayaan garoonka Köln. xiisaha kaliya ma aan saaxiibayaal qofka ku guuleysanayo koobka ee sidoo kaleetood weli waxaa jirta loolanka loogu jiro kasoo qaybgalka Champions League iyo sidoo kaleetood waxaa jiro kooxo u tartamaya in aysan ka harin tabeelaha ama horyaalka aysan ka harin oo horyaalka labaad ama Bundesligaha labaad aysan u gudbin. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Union Berlin oo ka dhisan caasimadda wadanka Jarmalka ee Berlin waxay leedahay 59 dhibcood. kooxda kale ee ku xigta ee shanaad ayadana waa Freiburg oo ayadana waxay leedahay 59 dhibcood. waa isku dhibco labadooda haddii ay Union Berlin bareejo la geliyo ee Freiburg ee badisana waxay noqonaysaa in Union Berlin ay ka harto Champions League isla markaana ay khamiisleyda tagto ama Europa League. so ayadana waa Union Berlin iyo Freiburg kulamada ciyaar ayagana waa kuwa aad u xiiso badan. Union Berlin waxay gurigooda ku casuumaysaa maalinta beri ah kooxda Werder Bremen. sidoo kaleetood Frankfurt ayadana waxaa aadayo kooxda Freiburg. kooxda Freiburg waxay kusoo ciyaari doontaa guriga Frankfurt oo haddii Freiburg beri Frankfurt ka badiso Union Berlin bareejo gasho ama laga badiyana waxay Freiburg muddo dheer kadib ay kasoo qaybgali doontaa Champions League qaaradda Yurub. marka waa Dortmund iyo Bayern oo u tartamaya in ay hogaanka qabtaan iyo sidoo kaleetood Freiburg iyo Union Berlin oo ayagana u tartamaya in ay Champions League usoo baxaan. kooxda Bayer Leverkusen wax chance ah ma haysato oo ay ugu sii gudubto Europa League oo waxay haysataa 50 dhibcood. Freiburg waxay haysataa 59 laakiin haddii beri laga badiyo ee Wolfsburg soo gashana waxaa laga yaabaa Europa Conference Cup kala dhahayo in ay ayadan soo kaleeto kale ay weyso oo sanadkan Bundesliga bis ay ciyaarto ay jaan iyo Deutsche Pokalka
oo ay jaanis kale u weyso in ay qoryaal caalami ah ee kasoo qayb gasho keliya ma ahan saaxiibayaal qaybta hore ee tabeelaha tartanka meesha ka jiro ee sidoo kale tartanka beri ugu adag wuxuu ka jira waxay tahay waa qaybta hoose oo kooxda kaalinta 15aad ku jirto 16aad iyo 17aad ilaa iyo hadda weli lama cadeynin kuwa go'i doon Hertha Berlin oo 18aad ku jirto waa kooxda kaliya hadda la xaqiijiyay in ay Zweite Bundesliga ka ciyaarayso laakiin saddexdan weli loolan ayay ku jiraan oo qof walba wuxuu ka cararaya waxay tahay in oo u dago Zweite Bundesliga kooxda Schalke waxay haystaa 31 dhibcood Bochum waxay haystaa aydan 32 dhibcood kooxda Stuttgart aydan waxay haystaa 32 dhibcood haddii oo ay Schalke beri badiso waxa ay tagaysaa 34 dhibcood taasoo ka dhigan in Schalke ay ka badbaadayso in ay ka harto Bundesliga oo ay u gudubto Bundesliga labaad kooxda Stuttgart waxa ay beri gurigeeda ku casuumaysaa kooxda Hoffenheim sidoo kale kooxda Bochum aydan waxay gurigeeda ku casuumaysaa kooxda Leverkusen waa ciyaar aad u adag Leverkusen oo rabto in ay joogto international positionkeeda oo ah Europa Conference in ciyaarto iyo Bochum aydan rabto in ay ka baxdo meeshan dhan oo tartanka lagu jiro Schalke aydan sidoo kale guriga Leipzig ay tagaysaa oo Leipzig ay isla ciyaarayaan ayadana waa ciyaar aad u adag oo waxay rabaan Schalke ayagana in ay joogaan qof dadkii daawaday 3 kulan iyo 4 kulan u dambeeyay ee Schalke ay ciyaartay dhamaantood waxay wada hayeen kuwa ay break gashay iyo kuwa ay badiyeen markii laga reebo kay oo Bayern Munchen laakiin Schalke awood kale la soo baxday waa laga dareemayaa kulamadeeda in ay rabaan inay joogaan Bundesliga wixii doonta ahaato kooxda kaalinta 16aad soo gasha saa u jeedina calaamad xariiqan baa hoos ka saaran kooxdaas weli lama go'aamin oo kooxda tabeelaha Bundesliga 16 kaga jirto waxa ay ku dhacaysaa kooxda kaalinta 3aad kaga jirta Zweite Bundesliga labadooda ayaa wada ciyaari doona kii oo labadooda soo badiyo ayaa wuxuu joogayaa Bundesliga kan kale kalena wuxuu aadayaa Zweite Bundesliga marka waa sababta oo xiisa u leeyahay koow waxaa loo tartamayaa qof koobka qaadi lahaa laba waxaa loo tartamayaa dadkii Champions League kasoo qaybgali lahaa sidoo kale Leverkusen waxay rabtaa inay international koobkeed ay joogto oo Europa Conference rabta inay joogaan iyo listigan u dambeeya ayaga dhan ah oo ka wada cararaya dhammaantooda in ay u gudbaan Zweite Bundesliga oo ayadana berito isnaari doono marka waa maalin qaas ah maalinta beri oo nin walba tuulada u degan yahay kooxda kasoo jeedo oo turbaanka u garaaci doono kaliya xiisaha ma jiro Erste Bundesliga sidoo kale Zweite Bundesliga asigan 28 gaal soo gabagabeynaya maalinta ku xigto oo tabeelihiisana waa kana kooxda Darmstadt oo ka dhisan Hessen ayaa ah kooxda kaliya hadirtaan tikidka u jaratay in ay Erste Bundesliga ku soo laabato oo Bundesliga dib ugu soo laabanaysa oo waxay ku guuleystay koobka horyaalka Bundesliga labaad waxa marka booska labaad tartan adag iskugu jira kooxda Hamburg iyo kooxda FC Heidenheim oo ayadana ka dhisan gobolka Baden-Württemberg FC Heidenheim waxay leedahay 64 dhibcood kooxda kale ee Hamburg caadiga aan naqaanay oo muddo Bundesliga ka maqan ayadana waxay leedahay 63 dhibcood oo haddii Hamburg bari badiso waxay kaalinta labaad kala bixaysaa kooxda Heidenheim ay kala bixaysaa oo kooxda Heidenheim waxay booqanaysaa guriga Jan Regensburg koox lahay oo Bayern ka tirsan ay tagayaan haddii Heidenheim laga soo badiyana kooxda Hamburg waxay la ciyaaraysaa ayadana Sandhausen koox lahay la ciyaaraysaa ayadana oo ka tirsan gobolka Baden-Württemberg ayadana team Zweite Bundesliga xamaasad khaas ayuu leeyahay oo dhagaha ayaa liska garaacaya weli waxaa hoos usii degayo kooxda caanka ka ahayd Bundesliga koowaad Hannover 96 waxay ku jirtaa weli kaalinta 9aad oo hoos ayay usii socdaan inta ay kor usoo imaan lahaayeen marka kooxda Darmstadt hambali ay leenahay Hessen sidoo kale beri ayadana waxaa la xaqiijin doonaa kooxda labaad ee imaan doonto horyaalka Bundesliga sidoo kale kooxda kaalinta 3aad ku jirta meeshan haddii Hamburg meesheeda joogto ee 3aad ay ku jirto waxa ay Hamburg la ciyaaraysaa kooxda tabeelaha Bundesliga caadiga ay kaalinta 16aad ku jiro haddii labadooda midkii soo guuleysto ayaa wuxuu usoo gudbayaa Erste Bundesliga kuwa kalena waxa ay joogaa kan kalena wuxuu dib usoo dhacayaa ama oo joogaya Zweite Bundesliga intaas yaa saaxiibi ilaa idin la wadaago hadda adiga su'aal ku weydiiyo kooxdee taageertaa position noocee ay ku jirtaa kooxdaada isla markaana rajada ama maalinta beri aad leedihiin heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay haddii oo videoga wax micnaa ku keen like share inta kulkan kulka xiisa badan kulmi doono waqliij ah fi amaan illah